أحزان قلبي لا تزول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودوانا ونانا منشد ميريا موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay asbaabaha loo xifdiyo sidee wax kasta oo aad doonayo u xifdin karaa. haddii aad tilmaamaha raacin siday tahayna u raacin, waxaan rajaynaynaa in wax kasta oo aad xifdid. asbaabaha loo xifdiyo kow waxaa ka ah jimicsiga. jimicsigu wuxuu u fiican yahay jidhka iyo maskaxda. jimicsigu wuxuu nadiifiyaa maskaxda. daraasad la sameeyay sanadkii markuu ahaa 2013 ayaa waxay sheegayaan in jimicsigu uu u fiican yahay qofka da'da ah iyo dadka da'yarta xagga xifdinta. furaha labaad ama astaanta iyo sababta labaad waa wacyigelintu waa furaha wax xifdinta. inaad akhriso shayga marar badan waxay ka caawisaa maskaxda in ay si fudud u qabato. wacyigelintu waxay kaloo kordhinaysaa kalsooni iyo awoodda. tallaabada saddexaad, samee subaxii akhrin. waxa aad rabtid inaad xifdiso salaada subax iyo ama kadib, samee akhrin si aad u xifdid. waayo subaxii waa waqti aad leedahay firfircooni aan lahayn waqtiyada kale. sidoo kale subaxii maskaxdaadu waxay u baahan tahay inay waxyaabo badan qabato. tallaabada saddexaad, iska duub inta aad xifdinta ku jirto. iska duubiddu waxay kugu beeraysaa kalsooni. tallaabada shanaad, qaado nasiino. tallaabada lixaad, ku tababaro qof kale ama nafsadaada. qof kale ku dheh oo iga dhegeyso ama adigu iska dhegeyso. aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada videogan. akhristaha maanta waa hogaamiyaha bari. si aad ula socoto videoyada aan soo dhigo channelkeena Walaal Xashan Media.